subax wanaagsan Soomaaliyeey waa Volleyball News mucaaradka Soomaaliya oo ceeb dhaxda ka taagan musharaxiinta oo ummadda la hor yimid Farmaajo ha is casilo waxay dhaheen waa in Farmaajo tartanka ka haro adduunka oo ka yaaban sida ay wax u wadaan warbixintan waxaan ku soo koobaynaa warka ay xalay soo saareen musharaxiinta ee la yaabka leh sababta keentay iyo sir culus oo ku hareeraysan geesinimada Farmaajo ee doorashada iyo walwalka mucaaradka Soomaaliya hase yeeshee dadow sheergareeya ugu horreyn warbixintan Volleyball News si runta iyo xaqiiqada bannaanka loo keeno waa tahay xalay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa war ay dad badan la yaabeen soo saaray kaasi oo ay ku dhaheen Farmaajo ha ka haro doorashada ha is casilo iyo yuusan mar kale isu soo taagin qabashada xilalka qaranka waa yaab ayuu yiri aqoon-yahan lagu magacaabo Xasan Geesay oo Muqdisho ku sugan wuxuuna ku tilmaamay mid muujinaysa sida uu yiri cabsida mucaaradka ay ka qabaan in Farmaajo mar kale guuleysto aqoon-yahankan waxa kale uu yiri waa fulayaal ogaaday inaysan tartanka kaga adkaani karin ina Farmaajo waxa ayna dareemeen guusha muuqata ee nabad iyo nolol waana taas midda walwalka ku keentay buu yiri golaha midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu ugu baaqayaa madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday haddana uu hanqaltaagaya muddo kale in lagu abaalmariyo in uu garawsado inuu ku fashilmay xilkiisii oo uu ku takrifalay ilaalinta dastuurka qaranka inuu iska casilo xilka uu hadda sida sharci darrada ku joogo in ummadda Soomaaliyeed ay ka hor istaagto inuu u tartamo xilka mar kale in Farmaajo laga mamnuuco in mas'uuliyad heer qaran ah mar dambe ka qabto dalka ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka midowga musharaxiinta oo dad badan ay la yaabeen qorshahan ayaa waxa uu yahay mid inta badan sidoo kale Villa Soomaaliya ka farxinayo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Engineer Maxamed Xuseen Roble oo isagu la sheegay in xilligan uu si weyn qorshihii uu la damacsanaa mucaaradka bannaanka ay u yimaadeen waxaa soconaya abaabulka ay Villa Soomaaliya dhinacyada wakiilada beesha caalamka uga horkeenayso dhinacyada midowga musharaxiinta mucaaradka oo iyagu diidan doorashada dalka inay dhacdo sidoo kalena warkan uu yahay mid si weyn uga caraysiin kara xubnaha beesha caalamka oo maalmihii dambe siyaabo kala duwan isha ugu hayay doorashada dalka iyo qaabka xilligan waxay u socdaan xubno ka tirsan maamul goboleedyada dalka ayaa sidoo kale la soo warinayaa in xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ay xilligan warka ay soo saareen ay la yaab iyo fajac ku noqotay marka loo eego arrimaha socda ay xilligan bannaanka keeneen madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in qorshahan ay midowga musharaxiinta mucaaradka soo saareen gaar ahaan warkan isagu ku saabsan uu si aada ugu farxay taas oo fursad u siin karta in bannaanka uu ka qaato doorashada dalka iyo u tartamideeda waxaana horay u jiray in xubno midowga musharaxiinta mucaaradka ka mid ah ay horay ugu tanaasuleen madaxweyne Farmaajo taasi oo si hoose loo ogaaday warkan ka soo yeeray xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa uu yahay mid inta badan xilligan la ogaaday in dhaqaale yari ay soo wajahday xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka taas oo ku saabsan in dhaqaalahoodii gabi ahaanba uga baxay dagaal siyaasadeedkii ay ku wadeen madaxweyne Farmaajo sanadihii ugu dambeeyay inta badan qorshahan iyo sidoo kale diidmada ay soo bandhigeen xubnahan ayaa waxa uu sidoo kale yahay war aad u weyn oo ka farxinaya Soomaalida gabi ahaanteedba marka loo barbar dhigo awoodda xilligan Farmaajo ee dhinaca siyaasad ahaan iyo doorashada uga adkaaday xubnahan haddaba daawade maxay tahay fikirkaaga ee ku aadan warkan la yaabka iyo fajaca noqday ay xubnaha mucaaradka soo saareen mase qabtaa in xilligan ay soo saaraan warkan
maxaad ku boorinaysaa xubnaha midowda musharaxiinta mucaaradka? waa sidee xaaladda doorashada dalka? sidee ayay kula tahay? fikirkaaga waa inoo muhiim. qaybta hoose ee commentiga inagula wadaag, annaga oo mar walba ka fogaanayna wax kasta oo dib u dhigi kara horumarka dalkeenna. waana rajaynaynaa in aad aragtidaasi nala qaadataan. mahadsanidin.